وكاسة ويدين كاركايا ماشا سو دلاليسو يسيد اللوغا دلاليي ولا يسكو دحركيا وادركيسان غوريغاغا وحيالا aad samaysan karta fadlan hadii laga helo insha Allah xagga hoose iigu soo qora inaad muxuu ahaayay qofkii adiga wixii ka raba inaad ka aamusto maaha ceebna maaha inaad qofka bilaadanka walaalkaaga ku tirado walaal waxa waan u baahanahay muxuu ahaayay ma ii soo galin kartaa wixii anigu sida aan muxuu ahaayay idinku soo sheer gareeyay ayaan la jecelahay inaan idin soo gudbiyo wixii marka dalabkiina waa muhiim in qofkii bilaadanka ah uu dalabkiisi sheegan kari waayana waa dhibaato insha Allah asxaabta qaaliga fadlan xagga hoose iigu reeba samayska muxuu ahaayay shaan bahalkii aan gidaarka ku muxuu ahaa meeyay insha Allah inaan duubay ay hub ayaan rajaynayaa wiigii hore insha Allah biidmillaahir rahmaan gidaarka saan ugu nadiifinayo insha Allah biidmillaahir rahmaan waxaan marka dambe u soo qaadanayaa hadii aan idin tus waa kaas wad u jeedaan marayar bad soo qaadanaysa dabadeedna qoqoyaanka iyo waxa soo dhan waan ka muldiyaa inay sidaas la iskugu daawan karo ayaan rabaa insha Allah biidmillaahir rahmaan oo wixii aan ku qabtay ay ka muuqan karaan ayaan rabaa insha Allah biidmillaahir rahmaan idinkana ay hub waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan insha Allah hadii Allah wadala ii ogolaado aniguna waalidiin soo gudbin doona waxyaabo fara badan oo aan ka sameeyay iyo waxyaabo fara badan oo aan u isticmaalay insha Allah biidmillaahir rahmaan shayda wixii aan u kinin garaynayo waa markasta waa very important meesha aad biyaha ka cabayso iyo meeshaasiba markasta way iska afbanaantahay habeenkii wax kasta way dul marayaan marka very important waa inaad caafimaadkaaga ka fikirtaa hooyo oo aad gurigaaga adiga ayaa ku jira oo muxuu ahaayay ma kana waa gurigaagii oo kale kii wadankaagina waa gurigaagii oo kale meel kasto aad ku nooshahay waa beedkaagii marka nadiif insha Allah biidmillaahir rahmaan waxaad ku nadiifinaysaana waxa dukaanka ka soo koof garaysatay baa 9 wax gurigaaga dhex yaala marka waa inaad fahantaa gurigaaga waxyaabo fara badan oo yaala waa inaad ka faa'iideysataa hooyo taas waa taladayda insha Allah hooyo badan oo Soomaaliyeed insha Allah biidmillah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan waxaan idin leeyahay maalintu haydin wanaagsanaato subaxdu haydin wanaagsanaato habeenku haydin wanaagsanaato fadlan subscribe and like and share insha Allah si ay wax badan uga faa'iidaan asxaabteena kale walaalaheena kale heli kareynin haday doonaan ee wadankeeni hooyo jooga marka please waxaan idin ka codsanayaa inaad u share gareysaan idinkana ajar iyo xasanaad Allah idinka qoro waxaan idin leeyahay dhamaantiin miisaanka xasanaadka Allah idinku daro waa mahadsantihiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma sha Allah asxaabtayda qaaliga ah aan jeclahay waatana bahashi waynu ka tagnay iyadoo iska giilabaan ka tagay dabadeedna beebigii baa soo toostay waan soo quraaciyay waan soo cadayay duushinkan geeyay waa soo dhamaystay hawlahaygii oo dhan ma sha Allah intaasaan rabay inaan idin la share gareeyo النظافة من الإيمان نظافة سواليبا كسحابسان muxuu ahaad ka faa'iideyso wax yar oo qurux badan oo gurigaaga dhex yaala oo ma sha Allah tabarakallah si aan caadi ahayn ugu sida kuma deynaya insha Allah anigoo meesha si kinin gareeyay ayaan idin tusayaa waa sida aan u isticmaala anigu gabadhba kulay sibay gurigeeda u habaysataa oo muxuu ahaa kinin gareysataa marka insha Allah bal ila daawada ma sha Allah ما شاء الله هدي أتكه الشيء ما شاء الله هدي أتكه الشيء تصحابت هذا قالقاه كل جنب وحنا دليا هاي صباح وناكسن أروري صوبا ساكا محي كشدن تهاي إن شاء الله هدي لها ودلا إي أقلاده ساكا محي كشدن تهاي إن شاء الله بإذن الله الرحمن ساكا محي نوغا شدن تهاي محي نوغا شدن تهاي ساكا meesha aad arkaysaan geedadkan ayaan ku waraabsaday marka waa ciid hamoodina xashiish waxaas waa ciid waaye waa ciidi weeye ka daadatay geedadkan ku waraabsaday meesha yaala marka insha Allah ay sameeyna hadii Allah wada ogolaado saaka waxaan sameeynaa insha Allah ciidna halka ka galin insha Allah waxaan saaka sameeynaa insha Allah meeshaas way dhalaalaysaa laakiin maxaan rabaa in aan malluq ka siiyo hashan oo iyaduna المودين يرأس كجلاد هاي إن شاء الله حتى لو حن ربينا أنت كسير دلالية إن شاء الله بإذن الله الرحمن ما حنقول دلالينا يا حتى ما نكون نظيفنا يا
uskag maaha meeshaydu laakiin waxaan rabay xalay ayaan sii nadiifsaday laakiin halkaas ayaan ka yara dardareemayaa in yar oo boorina ama uskag ah ama caajis ah marka maxaan rabaa saaka inaan meesha ku kinin garay haddii allaha awoodala ii ogolaado maxaad iiga barateen insha allah inaan idiin soo gudbiyo wax idin anfacaya oo fudud oo gurigiina dhex yaala insha allah biidmillah iyo hababka kala duwan ee aan u isticmaala insha allah biidmillahi raxmaan waad ila arki doontaan asxaabtayda qaaliga aan jeclahay horta ilaahay miisaanka xasanaadka allah igu daro waxaan jeclahay waxaan gurigeyga ku nadiifsanaya inaan idinla wadaago insha allah biidmillahi raxmaan asxaab fara badan ayaa isoo weydiiyey oo yidhiday sidii channelkii hore ku jirtay iyo channelka bakamaan jawaabin haddaan ka jawaabaya laakiin insha allah labadiina aan hayaa labada bikin kee ayaa active ah waxa active ah haddii aan idiin sheego labada inkastay kala jaban yihiin labadu kaas qaaliga ah ayaa very u ah danger oo muxuu ahaayey hadda kaa kuma nadiifinayo insha allah biidmillah kaa inta badan keeg ayaanu isticmaalaa kanna isagana sidiisoo kale keeg ayaa loo isticmaalaa laakiin way kala activesan yihiin waanay kala qaalisan yihiin kan waxaa weeye waa 9 senti kanna waa 9 marka inta badan kan ayaan dhowr baakad kasoo gataa dabadeedna waxaan u isticmaalaa in aan meel kasta oo aniga oo ka sameeyey muxuu ahaa hadda cafwan inuu iga dhamaaday baan filayaa mise wax yar baa kasii yaala anjabayni baate ooyay macaani asxaabta way bilaabantay baylan inay bilaabantay maalmoodayn cafwan iga raali ahaada bahalkaad arkaysaan waxaa ka dhamaaday beri hore bahal muxuu ahaayey aan ku nadiifin jiray muxuu ahaayey hadday noqoto muraayadaha hadday noqoto meel kasta power cleaner baa ku qoran shkalawbe waxaan u malaynayaa in laga soo gaday liidhalka insha allah biidmillahi raxmaan aniguma soo gadin marka insha allah biidmillahi raxmaan waa kaasa power cleaner kaasa ku qoran marka insha allah biidmillahi raxmaan marka kaas ayaan ku shubtay caagadaas aan u gol lahaa hadda caagadaas ayaan ku shubtay sida uu wax u kinin garaynayana anaa indhihiina idinku tusi doona waa sidan aan ugu nadiifinayo please haddii aad ka heshay ajar iyo xasanaad annagana ilaahay hanaga siiyo adiguna haddii aad ka faa'iiday ilaahay kii ka faa'iida allaha kaa dhigo anigu kolley faa'iido ayuun baan idinku soo gudbiyey insha allah kuwii ka faa'iidaysta allah idinka dhigo kuwii kala faa'iidaysta allah inaga dhigo waan inoo bilaabayaa insha allah biidmillahi raxmaan insha allah haddii allah awoodda la ii ogolaado waan idinka ilaabay insha allah labadaa weeye labadaan ka samaynayana insha allah anaa idinla soo socodsiin doona haddii allah awoodda la ogolaado iyo sidaan u samaynaya insha allah bahalkaas haddii la jeclaado insha allah siduu wuxu nadiifinayana anaa idiin soo gudbin doona hadda waxaan isticmaalayaa laakiinse muxuu ahaa easy gas ama khal iyo muxuu ahaayey iyo bikin blue farkiina insha allah aynu eegna lightkina waan idiin daaray markii hore uskag may lahayn meesheeda waan idiin sheegay xalay toonaan sii nadiifiyey laakiinse in yara waxaan ka dareemay uskag ah weliba halkaa muxuu ahaayey biyaha laga cabaye meesha marka insha allah bal sidaan u galo iyo sidaan idhaahdo insha allah ila daawada asxaabey saan wax idinla jecla idinkana ilaahay idinla jeclaado bilis asxaabtiina kale ee aan ogeyn faa'iidadan gaarsiiya jariya xasanaadna waad ka helaysaan runtii fiiri meeshaana sidaan odhanayaa marka ila daawo sidaan odhanayo iyo sidaad resultiga uga helayso waxaan ku shubay hadda haddii aan idiin sheego 2 aysiir baan isku daray iyo sigaasaan ku daray insha allah biidmillahi raxmaan waxa kale aan u baahanahay cadayadaasaan u baahanahay cadayada marka aan bedelo wiigiiba markaan bedelo iskama tuuro meel bay ii yaalaan marka insha allah biidmillahi raxmaan saan ugu isticmaalayana waa idin tusi doonaa waxaan isiri markaan dhammaysto uun tus laakiin wixii aniga ayaa iska duubaya markaa wixii oo aan muxuu ahaayey halkaas ayaan rabaa inaan aadi karo meeshan kale waa nadiif laakiin halkaas ayaan rabaa waayo biyaha ayaa ay khatar u tahay in ay halkaa ka geli karaan marka ayaan halkaas ka nadiifsaa inta badan markaas aad iyo aad bay u important tahay meeshan meelo daloosha hadday doonto jiri karta
marka laga yaabaa in biyahaaga nadaafadooda ilaaliso insha Allah waa sidaan anagu Fatima ahaan u nadiifiyo marka sidaa hadda ka dhigo hadii la hawada loo galaado kulli aan wada mariyo in isku soo noqonayna insha Allah waxaad jeedaan halkaas kaga soo saaray waan ku nadiifinayaa meeshaas oo dhan ku nadiifinaysaa insha Allah inaan wixii faa'iidadiisa idin tuso ayaan rabaa asxaabtayda qaaliga ah intaan iska duubo halka waan dhigi karaa laakiin asxaabtayda qaaliga waxaan jeclahay inaad iga faa'iidi doontaan insha Allah biidmillaahir rahmaan oo inkastana gurigeeda ay ku nadiifin doonto aanay ka maarmi doonto wixii ay ka soo iibsanaysay dabadda insha Allah